arrinta Jubbooyinka murugo badan ay keentay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto murugay ku abuurtay marka waxaan leeyahay ninka odayga meesha arrintan hogaamiya wasiirka mudane Faarax Abduqaadir annagoo shirka Al Jazeera aan joogno waxaan u sheegay su'aal baan weydiiyay ama hadal baan u dhibay hadalkaas wuxuu ahaa Abduqaadir oo walaal baan yiri waxa sameysay wax khayr ku jira oo maaragtay dhiig badan joojisay laakiin haddaad i weydiin lahayd waxaan ku dhihi lahay baan yiri idinka ka noqda garsoore dadka deegaanada degan khaasatan dadka reer goleedka ah iyo dadka Kismaayo loo dhiibtay oo qabsaday maanta gacanta ku haya Abduqaadir hadalihii jeediyay waxa ay ka mid tahay inuu wax u eg apologize sameeyay laakiin hooshii waa la watay marka annagana waxaan ku taaganahay qodobadii madaxweynaha uu ku dhawaaqay oo lahaa jirida laga soo bilaaba dadkii deegaanadii ka soo qayb galayeen laakiin waxyaalaha hadda socdo wax annaga noo cuntumaya ma ah ragga Kismaayo loo dhiibtay in arimihii dhan farta laga saaray oo caleemo loo saaray wax kasta loo saaray ayagoo lagala tashan dadka deegaanka u badan oo lagu soo degay oo maartay dadkii soo martigeliyeen dadka marka arintuna ma aha dhaxdhaxaadinta lagu sheegayo ma aha dadka Kismaayo loo dhiibtay iyo dadka maartay xabadda isu haysta waxa weeye dadka genocide-ka loo geeyay oo loo geeyay dilkii iyo dhacay atrocity-ga Soomaaliya loo geeyay annaga weeye marka annaga ku khasban haddii ay jirto dib heshiisiin annaga dadkaasi anaga noo hor fadhiisiyo taas hadayna ahayn madaxweynaha ayaan dusha u saaraynaa asigaana ka masuula anaga ma naqaan Abdulmagiisi Faarax ma naqaano wala wasiirka arrimaha gudaha asiga keenay madaxweynuhu ballan baad qaaday waa dhowr jeer aan wada sheekaysanay anaga waa ku ayisana ilaa aan ka dhiman waa ku aysinayna laakiin arintan Jubbooyinka waxay u keentay niyad jab Soomaali kasta ay joogto waayo waxay kaafilinaysaa cadaalad oo dhab ah dadka waa dhibteen dhib xoog leh ku dhacay kuwii qaxootiga joog khatiyaanay ka joogaan kuwii dibadda joog khatiyaanay ka joogaan laakiin cadaaladan oo ninkan Faarax noo keenay haddii Soomaaliya u geysid Soomaaliya maanta kuma soo socoto jeeran kala talinay arintaasi dadka Jubbooyinka jooga way is yaqaaniin arimahooda u keen hatta mar aniga hor fadhiistay ninka la leeyahay oo loo dhiibay Kismaayo oo la keensaday Kismaayo aan dhihi karaya waxaan ku iri mid kasto hatta booskaada hadda keentid anaga kaama qaadanayna dadka Jubbooyinka qabaa'ilka tirada badan dhaxkeen baan kadib wixii oo maaragtay oo kaas kugu soo baxo qaado دولة رئيس الوزراء هنقض حتى مدحوينها هنقض أنا كالسوني أو هينا لكن فارح مكيني كرو عدالة ولا رئيس الوزير داخلي أمر مكيني كرو وركسوا بلا كسماي وحلي يراد كسيما تشوف بالي رافك يجوي بقرطويني ذا تجنان جرتي أنا جملي هنا دت كان هلا قاضو وحلينا نبت لكن أنا جا مرتدى وإنا نقدم بيسمعها أنا إنا نقدم بينه 4.5 كان لشيء جاي iyo qaybta shanaad iyo taas meeshii laga keenay hal la geeyo meeshii laga keenay anaga ma naqaan dhulkayga weey diintayna sidii noo furtay waa cadaalad adduunyada maanta xurka dadka ilbaxnimada gaareen cadaalad Ingiriiska iyo Ameerika maanta waxay ku hormareen cadaalad laakiin waxa Soomaaliya ku socdo cadaalad ma aha nin walba meeshuu taabtay asiga iska leh taasna ma suurtoobayso mana suurtoobi doon aawi midnimadii Soomaaliya ma u jeedaa loo ma jeedo marka arintan Jubbooyinka waa ina dawladda ay ka fiirsata khaysta prime ministerka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanka waa inay ka fadhiistaan ana ma dhihi karno baarlamaanka ka masuula qofka masuula ma saddexdan qofooda ka masuula waa ina arintan loo soo celiyo dadkeeda anaga xaqeena kama hereeno mana ka heri doono
dhihi karaa ummadda Soomaaliyeed ma xuma dad wanaagsan weeye laakiin waxaan taabanaya taariikhda oo laga soo bilaabo 1972 oo rajiimkii Maxamed Siyaad Barre uu sameeyay oo goboladan tirad badan oo abuuray wuxuu abuuray ayadoo 8 gobol Soomaaliya leedahay ayaa 18 ka dhigay waxaan la hadlayaa raggii hore oo aaminsan Hiiraan degan iyo maartay Banaadir ex Hiiraan ex Banaadir iyo Aalto Jubba iyo Baas Jubba oo maanta oo aad u moodo aqoontoodii iyo waxbarashadooda gadaal ay jirto marka waxaan leeyahay nimankaasi ay waa inay tala soo jeediya ay wada fadhiistaan ay la yimaadaan ummadda Soomaaliyeed qaab cusub markii horeba dad oo nabadda ku talinaya dadkii soo dhaweynayay ahaayeen gulib aan waa u fadhinaa in dad soo dhaweeyno